min dhoobadiisii ilaa nafta lagu afuufayey waxay yidhahdeen culummadu waa afartan waa imisa waa 120 sano 120 sano iyuu ahaa maraaxishii aad maqasheen turaab tiin maxaa xama masnuun salsaal kalfakhaar akhiira wanafaktu fiihi min ruuxi intaas oo dhan wuxuu ahaa halkaa iska yaallo malaa'igtu ay aragto xadiis wuxuu ku sheegaa nebiga inuu ka toocsaday ibliis uu arkay isagoo isku daloola oo dabeeshu halka ka galaysa halka dambe ka baxayso war waxaan muxuu samayn doonaa buuri foorinaya isku daboola marka ilaan waa sanam buu yahay weli naf ma jirto marka hal ataa cala alinsaani xiinunka waqtigaa bay qaali lahaden xiinun somaad fahmi sheekadano waa waqtigii uu nebi aadan ahaa min marxalatu turaab ilaa marxalatu ruux intii u dhaxaysa lianna lam yakun waxba maahin culammada qaar waxaa lam yakun shay-an shay uu ahaayo de waa la arkaye madkuuran wax la xusa ma ahayn de wax magac leh waa insaan lama oran sharaf lama siin karaamo lama siin shay un buu ahaa okay taasina waa mid weyn mid kalaa taala su-aal kalaa taala hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri waqtiga adduunka soo maray nebi aadan hortii waa imsa waa malaayin sannadood kownku intuu abuurnaa ee bini aadankana la keenin مليون سنة يقولوا كيالي خلقي كلا كو أبورنا ديناصور iyo kownkan makhluuqaad baa ka buuxa inta makhluuqaadka malaa'iktu way arkaysa insaan ma joogo insaanku waa aakhiru khalqi illah wuxuu ugu dambeeyo ilaahay abuuro weeyaan marka insaanku ma joogo waa ko dahrigu intaa buu lakaa dahriga malaayintaa sano 100 malyan oo sano oo dawiya kownku jiray insaankuna fiid buu ka waa ko laba waxaa kaloo jirta xiinun min addahrigaasi waxa weeyaan waxaa jira intii waxbaba la abuurinbaba ya intii cir iyo dhul aan la abuurin maxaa jiray fadaa baa jiray viid baa jiray waxba faariqa waxaa jirayoon allah huwa alawalu waalaakhiru waalظaahiru والباطن وهو بكل شيء عليم وقتها فاروق أنا كان الله ولم يكن معه شيء كان الله ولم يكن معه شيء شيء ما قال حتى عرشنا ما جرين دي كرسينا ما جرين وحما جرين إلههم باجرين الأول يا إنه معنى النبي قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء خلاص وقت كان إنسان لما هذا العين laakiin waxaad garataa zamanka iyo zamankii dhulka uu jiray iyo markii aadan dhoobada laga abuuray nafta aan la gelin intaas oo dhanba aadan uu jiray halkuu ku jiray fii cilmi illah halkuu ku jiray fii cilmi illah inaan adduunka imanayna ilaahay uu sii ogaa laakiin ma soo dhaadhic xukunkiisii iraadadiisii uma bedelin cilmigiisii iraado uma bedelin ma oran waan rabaa inuu insaan yimaado weli ma oran bas هل أتى على الإنسان حين مركا إنسانكم مركا وآذن مايا ألف يلانكم من قادرنا عربي هو مهم ألف يلانكم هو عهديا وآذن ألف يلانكم ما قادرنا وعلى استقراق الجنس بني آدم بوقت ونجري سمي أدو مثل أفرت تجربات هاي أفرت الكور مال شيء مذكور هاي ومايا نيجي اللي حدنجير كاللي سنة كور لقوا ما يهدي لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سؤال شاسم إلهي مركا وحوري إنا أنكم خلقنا وحن كأبورني الإنسان إنسان كوحن كأورني وكأبورني من بان كأبورني بد نطفة دبع عندوف معناها دون دبع لابد وارد دبع نصف دبع بونت أنبسه عندوف أمشاج لا يسكو قصي لا يسكو دراي إيان كأبورنو إلهي محانو أبورنو ساو يالي بك جاوب حولي نب تليه وحان أجينا إنان امتحانو فجعلناه فأد وتعقيب سيء مغصوا بحا امتحان كان فجعلناه وحان كيالي سميعا من مقليا بصيرا أركيان كيالي
inaa anaku hadaynaahu waxaan u cadaynay asabiila dawga jidka maaha inaa hadaynaahu waxaan ku hadaynay maaha macnaha waa qalad dad badan baan ka maqlaa aayadda markay macnaha inaa anaku hadaynaahu waxaan ku hadaynay qofku ilaahay hadeeye muu halaabiba may ma halaabayo imaa shaakiran wa imaa kufuran meesha ka imanayso waxay kutusaa inaa hadaynaahu a inaa wadaxnaahu waan u cadaynay wey waan u cadaynay nebiga waxaa lagu yiri alayh slam inaka laa tahdii man axbabta ruuxaad jeceshahay ma hadayn kartid okay haddana waxaa lagu yiri wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim dadka waxaad ku hanuunaysaa dariiqa saxda labadan hidaaya isku mid ahayn hidaayada ilaahay waa tawfiiq ta nebiguna waa cadayn sala allahu alay wasalam uu kuu cadaynaya dariiqa halkaa jidkaa mar kaana hamarin marka halkan maxaa ku jira inaa anaku hadaynaahu waxaan ku hanuuninay oo ah cadaynay wey maxaan u cadaynay asabiila marka meeshan waxaa ku jira shan arrimood baa ku jira labada aayadood kow maxaa ku jira insaanka anaku waxaan ka abuurnay candhuuftaasoo amshaaji waa nakii soo macnaynay waxaan odhanay waa biyaha ninka ka imanaya iyo gabadha booydadeeda booyada maxaan dhahnay ahayd booydada waa maxay ukuntii wey waxaan kusoo macnay suuradda ka horeysa qiyaamo manidu waa ninka ka imanaysaa iyadu waa ukuntii markay isku dhacaan labadani amshaajkii baa bilaabmay waa isku qasmeen marxaladda ay isku qasmaan buu bilaabmayaa uunkii marka ay booyadu keligeed tahay biyuhuna ay keligeed yihiin abuuritaan baa jira waxba ma jiraan oo habeenkas waa ictirooda maxaa tartaa ma jiraan biyuhu way kaa soconayaan laakiin markuu ilaahay kulansiiyo uu rabana inuu ilmo abuurmo weyaan isagaa raba markaabaa nebiga waxa uri slaam maxaa ilmaha laga abuuraa min labada biyo kulankooga laga abuuraa buri labadani markay kulmaan iyaa ilmaha laga abuuraa buri nebigu alayh salaatu wasalaam ilahay baa ka abuura marka amshaajkaa baa ku jira amshaajkaa waxay ka dhigan tahay bacdukum min bacdin ragguna waxay ka yimaadeen haweenkuna maxay ka yimaadeen ragga walidaalika waxaa dhahdaa ninku wuxuu wataa 50% naagnimo ah iyo 50% oo raganimo ah ninku kullu nin adduunka joogay 50 naagnimo ah kugu jirto hay ka yimaatay hooyada ba ka yimaatay 50 aabbanimana hay ka yimaatay aabbaha gabadh walbana waa sida 50 hooyadeeda ku jirto iyo 50 aabaheeda waa korsoomkii aan sheegnay 23 iyo 23 maxay isku noqdeen 46 amshaajin marka ninku marka dambe markuu ilaahay nin inuu kaa dhiga doono waxaa hormoonaadkii ninkaa badanaya markuu ilaahay inuu naag kaa dhiga doonana maxaa badanaya hormoonaadkii naagtaa badanaya iminka maxaa la sameeyaa kuwa naagaha iska dhiga maxay sameeyaan waxay isku mudaanuun hormoonaadkii dumarkoo bullumay soo tirada baash ileen preparation baa jirka ku jiray jirkaagaa iska haysta marka horeba diyaar aha qaybtii seexatuu ilaahay seexiyey unbaa lasoo toosiyey wax kale maaha marka ilaahay daba nutfatin amshaaj waa ta koowaad weye halkaa buu ilahay naga abuuray arrinta labaad ee ku jirta suuradda waxa weyaan ilaahay muxuu inoo abuuray adduunka ahmiyaddiisa lagu sheego min maalinta aad dhalatid ilaa maalinta qabriga lagu ridayo raaxa adduunka ma taalo annaguna waxaan u fahnay nolosha inay tahay xaggani raaxadii wuxuu ku leeyahay inaan ka hera ardaygii markaan shaqo tagan raaxaysan ka bilaaxaaskiina wuxuu leeyahay markaan islaan yeeshaan raaxaysan marka aan shaqada aan howlgalbeen noqdo yaa raaxaysani kulluhaa waa khuraafaat waqti la raaxaysan doono ma jirto waxaa lagu yihi imaamkii axmed yaa imaam mata raaxa axmedow goormaan raaxaysanayna cinda awali qadamin fi ljanna buui lugta ugu horeysa markaan jannada ku hubino markaa inoo bilaasa raaxadi buui laakiin qabla dalika raaxa ma jirto yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun kaadix baa tahayoo adiga haddee baabuurka wan eriyanaye ciyaalkiibay gaaja qaban laftu kaa baxsan tahay ma garan waa soo fadhiisanuno ciyaalkii un baa kugu bilaabi hawlo waar milo ciyaalkani hallow ka daba shaqee way guursanayaanuno ciyaalkoogin baad korin ragga dhulkaan ku arna kuwa ciyaalka korin magar yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun
هذيك كليتنا كادي حنبا كجري حتى هذا إلهي عيال كسيمبا كادي حنبا هانسا لا هذه الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد دباغتا كجري سا مركا عقلينا aan ka saarno adduunku waa daaru raaxo halkii waa jannada weeyaan xagan daaru raaxo ma ولذلك نحن نبتليه maxaa lagu balaayinaya mid buu ilaahay siinaya caafimaad bilaa cadad mid baa oranaya wallaahi habeenna madaxu ma xanuunsan mise jir baa tahay 80 ma xanuunsatid ma xanuusta baanu xumooda caadiya way taxamaya bilaa cadad kaajoos ma arkaanba oo taxanaya mid baa cilmi la siinaya oo taxamaya mid baa xoog la siinaya oo taxaamo yahay mid baa cudur la gelin oo taxaamo yahay mid baa nin balaayad bila abuuraya khayr ya sharba nabtali dad baa haysta inay balaayad taawun wala nablu wanakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i halka baa laga xafiday yara laakiin lama xafidin inuu khayr kuna yahay imtixaan waliba ka adag kaaga ولذلك buu ilaahay nabi Suleymaan nooga dhigay misaalkii khayrka adduunko dhan markuu xukumay uu farxay uu yiri waxaan waa maxay waa shimbirihi waxaan waa maxay waa geedihi waxaan waa maxay waa quraanjadii waxaan waa maxay waa dabaylihi waxaan oo dhan afaaridi jinki kulluhum tahta qadami hada min fadli rabbi liyabluwani waxaan waa fadli ilaahay leeyo ugu imtixaamaya buu ashkuru am akfuru imtixaankii buu gartay kii kale uquuqi lahaa fa umburla waa taleega shima baash waxaan oo dhamaanay wada salaamayaan ما كودا ما تبي كومارتي مالهاني قبل يرحش دمير وكل أنا ماشي أنا كشلا أنا ماشي ير هدي اللي يقول يمادو أرماش ما حد معرفه كان أدو كودا بو حكومة يا ولي سليمان الريح قدوها شهر ورواحها أنت بالله سعنيش أنت كسرنا دياردو ديارد عجيبة صوص على دابك ما وصدق ساعد لندن كيمان إلا نيويورك أنت كلا وضع ديارد صدق ساعد كيمان ولا في عسيه صدح ساعة سيرو سراعي دون هذا اللي مقرب نص بكرة وقت يدعى لحدي ساعة بركي وسجوا حاله يقول لي مركب وجوجو يمن وطارا ينو تجو قدس وحيسعوني سي حل جير الصبح يوم قدوها شهر ده مش مجوجيني يضع ده وسعته مجوز كلني ده كون نق هل كان كو قاضي ده كلا يقاد وحاجة تقصد عجيبة لا نعرف صحتها ملك الموت كيف سو زيارتي isagoo fadhiyo kursigii boqortooyada malagii baa salaamayo alaykum asalaam asalaam maxaa u socotaa buu wuxuu mid meesha fadhiya nafta ka qaadaya meesha mid kula fadhiya boqorada meesha kursiga agtaada yaa nafta ka qaadaya laakiin waxaan ka yaabanahay meesha ka qaadayo meesha fadhiya isku yahay uu fajacay malagu ilaa wuxuu sitaa leeskii ninkii wuxuu ka yiri markuu baxay malakul mawtkii yara baxay buu muxuu ahaa ninkani ملك الموت كمان بوري ومحو يري دي هذا لو صعد بوري ولا الكيم بوري امر سي بوري ما رتي طب ايش يو هاي قاضو حقيت هنديه هاي قاضو بوري نيجي هندي يطي او قاضو هندي كتور طب ايش انه كبحش ملقي وكبحش تيودي بقر ملقي وا سو سيارتي ما رتي هذا مر دمو ومالتي واد قصشه مع قص waxaan ka yaabanaa buu ilaahay ninka waraqada wuxuu yiri hindiya kaga qaad nafta isaguna wuxuu joogaa buu Shaam Falastiin buu gula joogaa waxa ay qoranayo meeshaan fajacsanaa buu de waa cajiib wuxuu buu waxa uu yiri waan arkay buu inuu qaad ku dhaho halkii marka soo qaartay ninkii waan u rabaxay ninkii marka aniga waxa haystay wuxuu yiri hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur نبي أيوبنا عليه السلام عذر وحا كدعي أمدي أوردن أي كاتكتي حتى وحا كسعته ماكي وضع مش محايد حاسكيسي كل يجي صار نبي أيوب سو هالكا اسكفر يا إلهي بكو أشكتو لبا قرب يدو عشتي لبا قرب إلهي وكحشودي يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إله دباتا يحلى شيء adiguna waxaad tahay kuwa naxariista ka ugu naxariis badan hadda kuma jirto ilaahay shaafiya ilaahu iga qaad ilaahu wuxuu moorin rabbi inni masaniya durru wa anta arhamur rahim meel kale wuxuu rabbi inni masaniya shaytaanu binusbin wa adab ilaahu waxa ay taabtay buu shaytaan oo igu taabtay dhibaatiyo cadaab bas labada qorb fastajabna lahu ba'd waa loo jawaabay waa laga dulqaaday isagana maxaa laga balaay maxaa lagu sameeyay xaqii dhibaatada caafimaadka
اوكي وصبري ومثال كانه العقب لسي حوله بقرطيو وصبري وشكري ولا مركا إلهي تبارك وتعالى وعليه نبتلي الدونك وين نفهم مال امتحانا haddaan joogno waddan islaama waan imtixaamanna haddaan joogno waddan islaamka laga badaya sida kanadoo kale waan imtixaamanna halkan waxaan ku imtixaamanaya masaajid yar ya dhulka islaamkana waxaan ku imtixaamanaya masaajid badan laakiin dadka ku tukada yar yihiin nin baa meel dhowtay la kulmay wuxuu yidhi war sheekh anu salaadda waxaan ku bilaabay dhulkan maxaa dhacay maba tukaninba dadka tukanin baa masaajid xagga markaa imid umaydh waa miloo gaalimo ku dhimatay miskiidka orad ku galay nabtaliihi baad fahantahay midda labaad wuxuu ihi qur'aanka maan dhigan jirin buu ma dhigan iminka umaa bilaay buuri sheekh umaa tagay buuri sheekh mahad umaa tagay qur'aanka imar umaa idhi buuri anu iska weyn afka bax nuun waa dhamay alxamdulilah marka eeg waxba u tartay meeshani imtixaankii buu fahmay in badan mid kale wuxuu iga yidhi waa ribadan laga cabsoonaya dhulkii waan gurayna buuri baanka baan ka qaadano kol baaqlo maan dhisayna buuri xagan ubaan imano war xaaraan waa xaaraan dadkii baanka ma anu ma qaataan teer waa ma baraarugay buu ku yiri ilaa wixii aqal aan dhisoo dhan khatar buu haba bal nabtalihi soo nabtalihi ma meeshani imtixaanka nabtalihi ilaahay muxuu yiri nabtalihi okay waan soo soconaa talabada waa taas saddexaad ku jirta wuxuu ilaahay waa inuu ku siiyo hubkii waa inuu ku siiyo imtixaankaad ka bixi lahayd fajacalnaahu waxaan ka dhignay buu yiri samiican basiiran samci waxaan u yeelnay iyo basar culummadu waxay dhahdaan qur'aanka kariimka haddaad akhridiin laba aayadood uu marka laga reebo inta kaleetoo dhan maxaa horeeya samciga iyo basarka samciga horeeya muxuu ka horeeyaa basarka limaada muxuu ilaahay ugu horreysiyaa samciga basarka saddex arrimood daraaddeed wey horta kow adduunka waxa macluumaad la qaato information ma dhegtaa qaata mise indhaha qaata inta badan yani dhegtaa ka macluumaad badan waa kow bini aadamka o dhan akhrista xitaa marka waxaa akhrinaysid waa wax dee maaragtay ka mida waxyaaladii la maqlay unbaa lagu qoray buug labo arrinta labaad muhimka ni sheega marka la abuurayo qofka bini aadamka usbuuca 7labaatanaad usbuuc loo xisaabiya usbuuca 7 markuu ilmuhu socdo iyo dhagow shaqadii bilaabaan calooshii hooyadii ku dhex dhaqadii iyaa bilaaba shaqada horta dhigtaa bilow indhuhuna waktigaa uun bay furmaanay bilaabaane laakiin ilmaha yari boqolkiiba waxa u shaqaysaa 20 ilaa uu xitaa dhalanay markuu dhashay ilmaha soo baxo haddaa saa ku tirahdid ma dhaqaaqayo laakiin haddaa saa tirahdid meeshii laga yidhi saa waagi marka ilmuhu waxay dhahdaan iminka culummadu markuu caloosha hooyadii ku jiro waxa uu dhegaysto waa wax muhiima saa daraaddeed waa inaa qur-aanka aqal lagu furo marka islaamtu uur leedahay ragga weli loo sii dhalaya ma sheegayna qur-aanka ilmaha qur-aanka xadiiska diinta ducooyinka waxa fiican sheekooyinka macaan waa inuu maqlo oday maalin walba diraraya hadduu maqlo wiilkiiyo lugaha taagtaagyo baa soo bixi waa sida soomaalida caloole haddii laakiinna meel lagu degan yahay oo raaxa iyo hadal macaan lagu hadlayo ka soo baxana isagoo ilmaha raaxadii buu doodooni markaas samcigu uu shaqaynayaa laakiin basarku wuxuu bilaabaa shaqada runta maxaa ma taqaanaa markuu ilmuhu 4 jir yahay 4 sano iyo basarku kaamil noqonaya samcigu samar horba kaamil buu noqday fajacalnaahu markaa maxaa la horleysiiyey samiican basiiran waa talabaad weeye arrinta saddexaad waxa weeyaan adduunka dadka indhahala iyo dadka dhagahala ee laakiin inay wax bartaan jeclaada kuweeba badan ma kuwa dhagahala badan oo culmo noqda mise kuwa indhahala kuwa dhagaha markaa qaba ee dhagi u fiican yihiin baa culmo noqda lianna aqoontii uu maqlayaa uu dhegeysanaya meesha aqoontii uu gurayaa okay markaa taasina waa muhiim jiddan markaa taasi fajacalnaahu samiican basiira ta saddexaad arrinta afaraad ayad waxa weyn inaa hadaynaahu asabiila ilaahay ma oran inaa hadaynaahu subula dawyadii waan u kala caddaynay maxay ka tahay marka dawga waan u caddaynay maxay ka dhigan tahay waa hal daw halkaa daw waxaa yaala jaalonyadii jaalonka ma naqaan macaalimtii jidka maxaa la dhigaa tilmaamaa la dhigaa wuxuu qofku socdo jidka
tilmaamaa la dhigaa waxaa lagu leeyahay jidka markaa socotid 40 ku soco haddaa 60 ku socotid wixii kuu dhaca ayaa ka mas-uula adaa ka mas-uula marka maclamka waa lagu sheegay waxaa leeyahay jidkanaa socotid iminka haa waxaa kugu sugaya masas iyo biyo iyo dhibaato jidkaas halkaa bay fadhiyaan halkaa bay yaalaan ibliis baa fadhiya salaad la'aan baa jirta soon la'aan baa jirta dariiqa wixii yeeladho wucuuratu dariiq dhibaatada dariiqoo dhan baa nooga sheegay jannada dariiqeygii waa dhibaato inaa hadaynaahu sabiil jidka oo dhan wixii mari waa halkaa waxaa jira qolol halkaa baabuurku hore buu uga weecanayaa qur-aanku waa sidaa jidka lagu miro dhan baa nooga sheegay marka ilaahay wuxuu isduldhigay inuu jidka inoo caddeeyo waa tii afaraad ta shanaad oo ku jirta maxay natiijadii maxaa dhalanay markaa imaa shaakiran wa imaa kafuuran laakiin haggaa waa cajiib imaa shaakiran waa ismu faacil kafuurkuna waa ismu facuul waa siiqatu facuul haddaan ku idhaahdo ya ninkani aadani waa naakix naakix maxay ka tahay waa nin uu guursaday naakix uu guursaday saxaas male uu guursaday naakix u meersaday naakix weyn gabadh buu leeyahy haddaan ku dhahdo waa nukuuxna waa nin guur badan weeye facuulkii weeyaano waxay ka tahay markuu caawa mid doono beri way furan tahay taasi tu kaluu sii arkayaaba ya soo meelahaas kama joogaan qaar caynkaas dhagtown hayoon nukuux nabigeenna sala allahu alayhi wasalam maya xasan iyo xuseen baa saha xasan yaa cali baa lagu yihi cali ow marka la tashaday dhahdo ilan dadku way jeclaayeen nebiga ahlulbeytka la dee gacalubaan xidhiidh la yeeshaan way jeclaayeen xasanna wuxuu ahaa nin mitlaaqa dumarka aad u fura dadkuna malaha furaa maa furi waayo kol haddaan gacal noqonin rasuulkii ani maxaa igala socdaa gabadha haga qabsano markaa uga digi jiray cali wuxuu ohan jiray ninkani waa miswaajun mitlaaq miswaajun mitlaaq waa guursada waa guuri badane furis badanaa markaa nakuuxda uga socda nakuux haddaan ku dhaho hebel waa aakil uu cunaa akarata aakil maxay tahay uu cunaa haddaan dhaho akuulna laa xawla walaa waa daawan waad ka yaabaysaa wuxuu cunayaa shan nin waxay cunaan bu keligii waa akuul marka aayadda qur'aankii haggan maxay ku imatay imaa shaakiran kii mahadnaqayay maxaa laga dhigay caadi shaakir kuwii gaaloobayna maxaa laga dhigay kafuur limaada sababtu waa maxay aayad kale waxay jirta shukuurkaba ka dhigtay facuul wa qaliilun min cibaadiya shukuur soo maha laakiin haggani waxaa badan kuwa gaaloobaya ka badan kuwa mahadnaqaya wey kuwa nicmadda ilaahay sheegay garanaya waxaa ka badan kuwa aana garanayn in badan waa odhanaysaa sidii qaaruun inamaa uutiituhu calaa cilmin min cindi ya isagoo od garanaysay inuu ingegsanaa oo cagaa ku soconayay dhulka oo meelaha waxa laga siinayay bay u gali aradeerde masaajidii wax nasiib alno war loo shaqaystaa ku waran baasha war adbalu daaqada lagama siinay waad garanaysaa saa ahaan jirtee ka waran waxaan ku keenaad garanayn smart baa waa shaqeeyano war u isuloomaan waa kafuur soo ma waa kafuur ilahi subxana taala iyo macninayn ilaa haddeeto gabagabada qur-aankaba ayaddaba marka imaa shakuuran imaa shaakiran baa idhi dadka shukuurku waxay keer yihiin kuwa kafuurka saa buu ilahay tanna kafuur uga dhigay tanna uga dhigay shaakir soomaan garan taas idhaa okay ilahay markaa muxuu ihi wuxuu ka hadlayaa haddaba ilaahay suuradda aayadda ku xigtaayey natiijadii waa ku socnaa maxaa ka dhalan dee shaakir iyo kafuurkii wuxuu soo horreysay qole dambe gaalooday inaa anaku actadnaa waxaan u diyaarinay lilkaafiriina gaaladii salaasila silsilado silsilado ma taqaanaan ragga la xidho silsiladaa ku xidhay soo maha imika xataa kuwa lasoo shidaya dariiqa socda silsilada baa lagu xidhaa maha si loo garta meesha socdaa soo maha bini aadamkii baa saa kugu samay ilahi maxaad malaya ilahu silsilad kugu xidhay ilahu nagu xidhay silsilad salaasila iyo wa aqlaalan xadhko amba katiinado labadaba dhe xadhko amba katiinado wa saciiran iyo olol saciirku waa olol iyaan diyaarin saddex shi wey silsilado oo ilaahay kama baxsan karne muxuu ilahay noo silsiladaynayaa ya
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه وقل ما إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إله وين أنت اللي بكل مجري ولا يحض على طعام المسكين. مسكين كان عتدي صدقه بدهرين. إله وحوليه وحاولنا سلاسل إيا أغلالا إيا صعيرا. أنت ما مدير إله تعالى قال كي ويداس وعذابتي جهنم وحيد حيرا قال كي والله صوكوبي هذا الكيس اللي هو بدل المات سيدي عادي إلهي وكل يرجل سماها لكن سورة الإنسان إلهي ويسكر ضعفه وحضونا إنه ملك الدقيق سورة نصابة لو أخرج لي مالين كستو صلاة الجمعة صباح أول أو جمعة ينوي كو أخرج لي صحابة إلا أفكي سكح فدان سيدي سورة وقاف فكي حفدان أفك النبي قول مو أخرج لي النبي خطبة الجمعة إن بدأ بك آخري خطبة الجمعة سورة وقاف والله وضع حفدي تنا waxaa lagu xafiday nabigu salaad wax uu ku tujin jiray maalin walba oo subax la tago uu tujin jiray innal abrara buu ilaahay dabay innal abrara kuwii samafalayaasha ahaa abraarku waa maxay waa samafalihi birul waalidiinka soo barri maaha waa qofkii u samafalayay ilaahay waalidkiisa diintiisa dadkiisa muslimiinta oo dhan innal abrara baad min al birri bay kaymatay samafalayaashii yashrabuuna waxay ka cabayaan ajiib jannada galayaan balamuurin ها إن الأبرار يدخلون جنة محل جنة ويقلنده شقده جنة كده قبسنين بالغوش يا يشربون وحي عبيان هي من كأس بك عبيان كأس هو كوب لكن هو كوب كم مركه وفارغ هو كوب في عربي مركه أي وحكو جيرانه محل هذا وكأس عربتنا وحي كأس استعمالا مركه خمر كجرت خمر مركه كجرت بعد هذا كأس يا وفاكهدي marka waxa weeye khamri baa lagu cabayaa jannada laakiin khamrigaasi lagu leeyahay laa yusadduuna anha madaxana kuma xanuunayo yansifna ma keenayo qawlna male alcohol kaga baa laga soo qadiyaa kelimada kool waa af carabi kelimada kool waa la qawlun fi hada qawlki ba kool do alcohol badan alqawlki koolna male bas kharamaysi kaadida lagama qaadayo waana khamri macaan ladada lishaaribiina ya cabaysa kaasigaasoo hagala keenay kaana ahaaday wilaadi misaajuha wax ku darkiisu kaafuuran geedka kaafuura dhada geedka kaafuurka dhada aan ku meedhno anako meydka waa geed khadhaadde laakiin halkan waxaa laga sheekeynaya maaha kaa magaca uun baas kulmaye waa bayaadka dhalaalka biyo marka سوي خمرة دلالك بيها دلالك ويان افتين عديهين إلهي وحوليه مزاج كيغو كافورا وياهي كافور كيبا لا شيغو كافور كاس محو ياهي عينا بدل لأن عينا ومحي ومنصوب صمه اللي هاجا محاهيد كافورا عينا ويا ايش بيو كسو بودان هذا ما خلال ايش اصلا وإلون يا إيش أنا ورا عينك ماشي بيوك صورة سبحان الله لكن واحد عجيب وحين عينك بيلاهي معنى حولي يشربوا وحا كعبية بها إشعاز عباد الله أدومها إلهي سوى عبي ولا كل شيء عيال كاسو يفجرونها لبا معنى هذا صاري وعولي إمام قرطبي رحمه الله وحا هيستان بوري بود يروه isagoo fadhiya ilaan daara lagu jiray jannaduna dhulkii bay tajri min taxtiha lahna Soomaha ceelkii alka biyaha yaala ama khamri yaalo cabba doonaya oo shisheer musaaranaya bulo marka dadka wuxuu garan lahaa isagu inuu noo sheego ina bahal lagu soo qaadayo control ma gar ma dhada remote control astaas way remote control isagu bud buu noogu macnay bud hatta ma haysto maaratay xadiis u sheegay ma haysto sidee dadkani biyahani u tagaya halka yufajiruunaha iyadoo u tagay sabc ku macnay tafjiiran tagis u tagay amba se yufajiruunaha tafjiirku waa maxay waa qarxin xiyo burqin ay burqinayaan tafjiiran burqis way burqamaysaa ma dhamaanayso biyo waad ka cabtay ma dhamaanayso soo noqonaysaa khamri waa ka qaatay waa sideed ma naaqusanta marka labada macna leedahay biyo way burqayaan tafjiiran burqin amba se maxay way tagayaan isagoo jooga meesha ugu sareysa oo buu leeyahay سوى دللت حياة قطوفها كيد كوي من ياو اوكي سوساس بقرن ما حيكو هلا وحا انتالك
waxa intaa leeg ay saa ugu raaxaysanayaan ay biyaha ka cabayaan meesha maaragtay waliba noo socda soo cabayaan biyaha maxay ku helaan ilaahay wuxuu dhafayso yuufuuna waxay oofinayaan binadri nadriga waa maxay ballanta ay naftooda la galaan ay dhahdaan anigu wallaahi hadduu ilaahay waxaa isiiyo calaya waxaa igu korkayga yaalla inaan soomaya bil waa nadri amba waxaad ku nadriday waxaad tihi wallahi hadduu ilaahay waxaa isiiyo $10,000 baa miskiin hebel siin hadduu ilaahay caafimaad saa igu soo dejiyo waxaabaa tiri nebigu sal ly slam qofka nadriga badan leh uu yara canaantay nebigu wuxuu ihi waa cibaadada bakhiilka limaada wax ilaahay keeni lahaa unbuu sii dedejinaya bui caafimaadku waliba ku iman laha ilahay caafimaad tira ma lakin ilahay baa shardi la galaysaa wamaca dalika haddana ilaahay uu ammaanay kuwaasoo wuxuu ku ammaanay wuxuu ihi yuufuuna binadri walidalika nebigu wuxuu ihi qofka ilaahay daacaddiisa ku nadriya ha oofiyo qofka macsiyad ku nadriyana inuuna oofin wallahi hadduu ilaahay caafimaadayo lama hadlayo wadaadkeenu baatay lama hadlayo mana salaamayo maxaa oran dhota war waan dhaartay daba dhama war anigu waan dhaartay inaan la hadal dee dhaartan ka soonoo iskala hadal ha yuufuuna binadri kuma jirtaas macsiyadu kuma jirto amba waxaa tiri wallaahi hadduu ilaahay waxaa isiiyo qowrad khamra ila cabi doona la macsi kuma jirto yuufuuna binadri nadrigu waa daacadda ilaahay okay ta koobaadi waa taa wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan yowman maalin kaana ahaatay sharuhu sharkeegu mustatiiran tu meel kastiiba gaadhay istataara alkhabaru khabarkiibaa meel kasti gaadhay maalintaa sharka dhacayay adduunka xayawaan iyo bini aadan iyo maxaanku idhaahdaa dhul iyo kown sharkeegu uu gaadhaya maalinkaa bay ka cabsoonayaan cabsi ay ka qabaan iyay ilaahay cabsiday ka qabayeen baa keentay inuu ilaahay ugu oofiyo jannadaas ilaahay wuxuu yidhi subxana wa tacaala wayuطcimuuna waxay cuntaysiinayaan raashiminayaan aطacaama raashinka allahu akbar okay aayadahan waa ku gabagabayna insha allah wayuطcimuuna waxay raashiminayaan aطacaama cuntay bixinayaan raashin bay bixinayaan raashinku marka waxyaaladina badbaadina akhira ku jirta in dadka la raashimiyo laakiin aayadda maxaa laga daba keenay waxay raashiminayaan calaa xubihi iyakoo jecel raashinka inay maad bixisaa u bixinayaan maxaa ugu fiican cibaadada sadaqada ta aad bakiilka ku tahay id bixisid taabaa ugu fiican marka calaa xubihi macnaha waa la saaray laba waxaa la saaray calaa xubihi jacayl ilaaha ay jecel yihiin wayuطcimuuna aطacaama waxay u bixinayaan maxay calaa xubihi waa laba saddex ti waxaana bay jecel yihiin ta labaad ilaahay bay jecel yihiin ta saddexaad wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi waxay jecel yihiin qofka miskiinka ay cuntada siinayaan jacayl ay u hayaan bay siinayaan marka inta waa la saaray maxay cuntada siinayaan miskiinan qof waxba haysan wa yatiiman agoon wa asiiran iyo mid xidhan nin lasoo qafaashoo la haysto saddexdaa bay wax siinayaan saddexdu waa maxay waa waxa maanta loo samaystay ururada bini aadanka waxa dhan soo ma miskiin iyo agoon iyo dadka xidhan ay ka shaqayso ururka dhahdo xidigta maxaa dhahdaa xidigta cas wa asiiran iyo kuwa xidhan bay u tagayaan waa labown qofka xidhan ee muslimkaa inaad lacag bixisidoo soo fidaysid oo soo sidaysid amba qof muslim bahayn oo xidhan oo waddan islaama ku xidhan oo siisid suu islaamo amba meel kaleba ku xidhan oo raashin u geysid oo siisid oo wax wanaagsan bilaali ilaahay markaa wuxuu yihi hadafka u bixinayaan maxay tahay raashinka inamaa in kale maahine nuطcimukum waxaan inii siinaynaa liwajhi illaahi wejiga ilaahay laa nuriidu nigama rabna minkum ininka jazaa'an abaal walaa shukuuran iyo mahadnaq bini aadamku markay maanta wax bixinayaan labadaabay u bixiyaan waa la yaqaana ya adduunku maanta wuxuu ka sheekeynayaa aabi axmed inuu helen jaa'isada maxaa dhahdaa nobelka nebi moxamed markuu nabadda adduunka ka shaqeynaya majaalisad baa lagu siiyey laakiin jannada lagu siini doonaa